xajagada madaxweynaha xisbiga cadaaladda Israa'iilka oo ciidan hogaamiyaha guud ee xisbigaasi injineer Faysal Cali Waraabe oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha Hargeysa ayaa markii ugu horeysay ka dareenayay doodii adkeyd ee dhexmartay musharaxiinta dhigiisa doorashada kula loolamaya isagoo u mahadceliyay kumanaan shacbiya oo tilmaamay inay ka soo hambaliyeen daafaha kala duwan ee dunida. dadkii badnaa ee doodii 19 bisha iyo 20 bisha ka dhacday musharaxiinta waxigeynkeeda soo hadliyay inuu jawaab kale waayay boqolaalka kun ahaa ee ka dibadda joogeen gudaha joogeen wax leeyahay mahadsantiin waxaan ugu hambalyeynaysaa wax weeye wax waajibna saaran waajib dalka u yimid waajib aan 25 sano u halgamay in dalkan uu noqdo dal nabada cadaalad u shaqeeya. injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu sidoo kale baajiyay isku soo bax xisbigiisa ku balansanaa 27 bisha Oktoobar oo ku beegan maalin Jimcaha isla markaana noqon lahayd markii saddexaad olole baaxad leh xisbigiisa isugu soo baxo guud ahaan Soomaaliland waxaanu ku sifeynay tahay maalin cibaado. Jimcaha waa maalin cibaado 27 bisha waxa laga soo hagay maalin saddexaad saacad ijaaba ku jirta dadku cibaadeysta ونستا maalinta anagu ma urud ma baxay dadka dhibaato u keenay lacagtii fara badan ee basaska iyo qaadka iyo qurunka lagu sameyn jiray sadaqad baan ku bixin insha Allah taala dadka gobol waxaan ka sameynaa waxaan gaarsiin karnaa dadka dugul dadka soo barkacay tuulooyinka degan dadka xanuunsanaya agoomaha ayaan kharash insha Allah taala gelina. injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu sidoo kale si adag u duray musharaxiinta doorashada kula loolameysa yaani waadi musabbixi ciro waa bari local meel isla mariyay ma oga halka dadkeen baahideen ma oga kursiga oo muuqda bilida may qabtaan meel mareen garan maayo wadi shaati muuqda ma hore muuqda ajenda male kursiga waxaan ajendeen ma kaloo suldaan bay daranaya kaloo islaam bay daranaya caruurta qayb ku abuuraya ya ma halo waxa wax leeyahay mustaqbalka ku xumeyn doorashada way dhacday 19 ka dhacday إن شاء الله تعالى دارتو مسؤول إن شاء الله تعالى حسب التعيشنا إن أسلوب لو مرة ودوي ما خير يدري ما أسلوب لو مرة ذاتك على دلين كراهية للسنة يا برينا حبيك هنا على توجيه سياسة على توجيه فسوق على توجيه حبلها يقولش استحياء على توجيه digniin kama dambayso oo adag ayuu u diray siyaasiyiin iyo sidoo kale garaadada uu tilmaamay inay fadqala ka wadaan qaybo ka mid ah gobolada bariga fog ee Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay u hogaansanaadaan sharciga iyo kala dambeynta Soomaaliland. waxa wada yeelanay cid martii ma jiro qaatumo waxa weeye Soomaaliland uma martiha ya qaatumo wax weyn wada leenahay Soomaaliland wada leeyahay oo loo siman yahay oo cadaalad ku shaqeysa وكتابك إلهي سبحانه وتعالى وش قصته وعليه رجل يكشتك هو ضبوه ولو إحنا هذا يعني قرأت صوفي أنا قرأت صوفي هذا ومضح كان شو ترجل غير بوه ما تصير عروض المستقبل الدنيا حكاية يا مستقبل مستقبل بهين تعليم بهين يو بهين قالوا ناس كحول ما يصير بدشوا بين بعض نفتح شيء قالوا بحاج بحوش يلعب بوه هذا واسو مالوين وحاول بلا بو حكومه يا وحليه منسى ما جيكرت وانت لا وش شيء waxaan dowrina in meeshaas magaan si dadkaas barakaco laakiin naga maxay Soomaaliya kama xishin kartid buu shan daqiiqo way lagu qabsan karay laakiin waxaan diidinaa inay riixo reebto oo xumaan reebto oo caraf ma keento. ugu dambeyntii waxa uu injineer Faysal Cali Waraabe si adag fariin ugu diray madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas isagoo ugu hanjabay in Soomaaliland gacanta ku dhigi doonto magaalada Garowe waa sida hadalkiisa u dhigay. ka dhigin goob lagu tirdo waad ogtahay ana xabadu ma ka dhacdo iska tagay ninka reer Garowe ana weyn ku taqaanay la saxaabada ka dhacay laakiin Soomaaliya ma dhisa agu wadada ka yahay waxa ka dhacay Soomaaliya markii uu dagaalamay maxamed siyaad baa soo rogacay اللي هو سوري يعني ودي يعني dadku wartaya marka dadka way ku yaacna shay ku soo diray adduunna waxaan leeyahay haddii aad dhaqaaq samaysid والله انت دولة iska deegan garoon ma
reerkaa wadad wanaagsan oo jaar nahay xididii ahlba oo nahay laakiin Soomaaliya sanaayo xadladan ku sheekaysanaysaa haduu mid dambe waxaa tinka reer Soomaaliyeed baa tahay dadka jaarkaas waxay hogaamiyaha shacbiyadda faraha badan iyo taageerada ku kasbaday doodii 19 bisha Oktoobar ku dhexmartay gudaha Hargeysa musharaxiinta kale dhigiisa doorashada kula loolamaya 13 bisha Noofembar isla markaana markii labaad maalinta bariyeesu diyaarinaya isu soo baxay sidoo kale dowladus xisbigiisu ka sameeyo gobolada iyo degmooyinka dalka wali ku siiniyadsan in xisbigiisu yahay kan ku guuleysanayo hogaaminta Somaliland Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.